maamulka gobolka hiiraan heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan bulshooyinka magaalada beledweyne baan saxaafadda iyo guud ahaan dadka sharafta badan ee ku sugan xulkan iyo guud ahaan gobolka hiiraan gaar ahaana magaalada beledweyne waxaan ku salaamayaa salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bacda salaam alla ayaa mahaddaas iska leh alxamdulilah ayaan leeyahay runtu waa ilaahay mahaddiis haddaan maanta magaalada beledweyne annagoo nabada haba yaraatee cid wax naga gaadhayna aysan jirin aan ku wada sugannahay ilaahay ayaan ugu mahad celinaynaa waxaanu halkaan aan ugu mahad celino cid kasta ee gacan ka geysatay inay sida wanaagga ay u dhacdo oo annagoo nabada haba yaraatee wax dhibaataan ay la dhicin aan isu imaado cid kaste alla ka sukow cid kasta ee gacan ka geysata waxaan leenahay waa mahadsantihiin hadday tahay duubabka hadday tahay odayaasha dhaqanka hadday tahay bulshooyinka gobolka hiiraan hadday tahay dowladda hirshabeelle mas-uuliyiinta halkaan uga sugneed ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee amniga ka shaqeeyey runtii cid kasta ee gacan ka geysatay inaan si nabada isula nimaado waxaan leeyahay waa mahadsan tahay wanaaggaas iyo dadaalkaasna ilaahay ka abaalmayo runtii aad ayaan ugu faraxsanahay sida deefaanka ee aniga waqtigii la socda ay ugu soo dhaweyseen magaalada beledweyne oo qalbi furaanta iyo wanaagga hor ugu soo dhaweyseen waa ka mahad celinayaa waan ognahay dalka soomaaliya meelaha ugu ilbaxsan ayay ka mid tahay oo gobolka hiiraan ka mid yahay waa dadka mas-uuliyiintii dalkan xabad kala duwan ka soo qabtay gobolladay ka soo jeedin waa dad xalaaliyiin ah runtii waan ogaay inay maalin dhacayso sidaa oo kale iga dhabaata dhicin idinkoo faraxsan anagoo faraxsan inaan isu imahayn weeye waxaan halkastaan ugu dhufinaynay oo dadkayna ugu dhufinaynay waxay ahayd dhammaan inay sidaa dhacaysaan ogeyn hal qof oo ummadda hirshabeelle inay wax naga gaaraan ama naga dhimato ama naga dhaawacantaan ma rabno waan rabaa haddaan isu soo hor fadhiisanno inaan la warranno waan daawoodaynaa tabasho kasta ee jirtana xalal loo ilaadilayaan ka dhigo waxaan rabaa hortiina inaan ka caddeeyo cid kasta ee wax tabanayso inaan la fadhiisayno tabashada ay qabto hadday mid deegaan tahay iyo hadday mid qabiil tahay iyo hadday mid qoys tahay iyo mid qofeed hadday tahayba waan ka qanci doonaa haddii la ilaali ka dhigo aan warrano waa aan walaalowno dadkaan dadkaa ka dhaxeeyo deegaanaa ka dhaxeeyo dowladnimaa ka dhaxayso wardalashaa ka dhaxayso ismawta ee samayn waayo waa la isku rasban yahay horena waa la isula jiri jiray haddii la ilaali ka noqdo waana la isla jiraa haddii la yidhahdo mas-uuliyaddu waa meerto ninba maalin oo qabaa shalay waa la haayay maanta waa la haayaa berina waa la haynayaa laakiin wada dhalashada iyo dhaqanka iyo dowladnimadu way jiraysaa haddii la raalli ka noqdo cid kastaba maalinkay joogtaa la raba inay ummadda isku hayso si wanaagsanna ay isugu hayso oo dadka iyagoo isjecel in la isku hayaa la rabaa waxaan isleeyahay waa guud annagoo nabada haddii aan isu iminay sanadka taga waa isleenahay wax badana idin qabsoomi lahay haddaan khilaaf iyo wax kala tabasha jirin wax badana idin qabsoomi lahay oo horumar aan isleenahay laakiin inta dhiman haddaan alla tala saaranno tawfiiqna nalanno waa huba wax badana loo qabsoomaayo waxaa laga rabaa ummadda hirshabeelle in taladeeda la mideeyo abaaraa jiro
amni darraa jirto runtii waxaa loo baahan yahay tala midaysan iyo tawfiiqaa loo baahan yahay ummaddaana waxaa ugana in lagu hago waddada horumarka midnimo iyo tala midaysan in lagu hogaamiyo u baahan tahay waxaan ballan qaada hortiina ka ballan qaada alla hortiisana ka ballan qaada ummaddaa in cadaalad iyo sinaan aan ku hogaamino haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin runtii baan ka mahad celinahay dadaalkiina iyo soo dhaweyntiina beledweyne waxaa la rabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inay doorasha ka dhacdo doorashadaasuna waxaa ku soo kordhi doono magaaladan intaasoo kun aqoqoona imaan doonto oo erge leh oo murashax leh oo midowkaan beengareehaya leh gobasheediyaa laydinka rabaa soo dhaweynteediyaa laydinka rabaa amnigeedina waa laydinka rabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo ciidamaduna amniga mas-uuli karaan haddayna bulshada qaybeeda kala doonayna la shaqayn maamulka keligiisana waxba qaban kariyo deegaan horumarsan ee nabadaada aragto bulshada iyo hogaankeeda midaysana waxaan rajaynayaa hogaanka iyo bulshaduba inay dhinaca soo jeesan doonaan taladoodana ay garan doonaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan rabaa doorashada dhacayso insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo inay doorashadaa furan oo dadku ay ku qanacsan yihiin ayaa ka dhici doonta haddii ilaahay raalli ka noqdo guud ahaan hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne hadda ku sugannahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin guud ahaan bulshada waa arki doonaa gowragoweyna waa arki doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo laakiin waxaan hoosta ka xariiqaa tabasho kasta ee jirto inaan qanci doonna haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin waqti dheer ilaa halla ilaa waqtigaanaad taagneedeen waxaan rabaa maamulka gobolka iyo dadka degmooyinka gobolka hiiraan waan ognahay abaaro ba-anaa jiro hadday tahay biyo la-aan iyo hadday tahay baal la-aan intaba waan ognahay xaaladaas waxaan idinka rajaynayaa inaad warbixin kooban looga keentiin degmooyinka guud ahaan guddoomiya aad warbixin ka keento si aan hadday deeqaamin tahay iyo hadday meel xaalad degdega ka jarta tahayba aan u warjawaabno haddii ilaahay raalli ka noqdo waana sii bilaabi kartiin deegaanaday igu daran yihiin ilaa 3 goboloo booyado meelay iga daran yihiin degmooyinka iyo guud ahaan waxaad guddoomiye oo ruboor ka keentid hala sii bilaabo biyo dhaaminta haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsantihiin